fursad fan waa mashruuc ay leedahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto markaan sii sharaxo waxa ay ka shaqeyn doonto qarashaadka waxa loo baahan sanadka koowaad in la helo 5,000 oo qof oo si toos u dhiibi karo maalintii $1 oo ah qofkii sanadkii $365 ka bacdi waxa go'aanka iyo bixinta iska leh guddiga sare ama boorka sare 12 qof ka kooban oo dhammaan ka yimid gobolada Soomaaliya waxay noqon doonaan wax walba wax kaleer ah oo cad ay noqon doonaan cid soo dirto magaceeda iyo goobta ay ka soo dirtay website-ka lagu cadeyn doonaa ay kala socon doontaa boorka markii uu go'aamiyo inuu mashaariic bixiyo amba dad si waxbarasho amba wax uu bixiyo 3 bilood mar isku yimaado waa wax la cadeyn doono boorka oo ku cadeyn doono website-ka oo fursad fan sidaas ayaan maaragtay ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto u sheegaynaa cidii $1 iyo $2 iyo $3 soo dirayso waa laga qabanayaa laakiin waxa koow ah oo targetku uu yahay 5,000 oo qof oo dhiibi karto qofkiiba $365 sanadkii oo ah lacag $1,800,000 ah meeshay ka timid iyo meeshay ku baxdana website-kan lagu cadeyn doonaa meedii hodhan lagu cadeyn doonaa insha Allah taala go'aankan waxa iska leh 12 qof ay ugu sareyso waxaan rabaa inaan ka hadlo qaabka loo bixi doono lacagaha ama mashaariicda waxay noqon doontaa cid walba inay soo dalbato oo wala xayisiin doonaa wixii aan dhiibayno ama wixii aan bixinayno markay soo dalbato cid ku guuleysato ayaa la siinayaa waxaan lagu cadeyn doonaa website-ka wixii la siiyay iyo qaabkay ugu guuleysatay iyo cidda ay ka guuleysataba waxay noqon doontaa wax walba wax kaleer oo cad insha Allah taala sidaas ay ku socon doontaa fursad fan waxaana go'aanka iska leh boorka sare oo 12 qof ka kooban mashruucan ah fursad fund waa mashruuc inkastoo aniga aanan bilaabin laakiin wax badan madaxayga ka guuxaayay oo aan jeclaan lahaa mashruuc noocan kala ah inay dad Soomaaliyeed ay bilaabaan marka waxaa dhacday dad aan asxaabnahay oo aad isu naqaano inay ila soo xiriireen ila socodsiiyeen in mashruuca noocan ah oo iska wax u qabsaa ummadda Soomaaliyeed wax loogu qabanayo in la bilaabayo waxaa dhacday marka waan aqriyay documentiga iyo wixii aniga shakhsiyan waan jeclaa mashruucan oo kale inaan bilaabo ama dad bilaabay inaan wax la qaybsado marka maadaama dad walaalahay ah oo aan aad u aaminsanahay oo Soomaaliyeed ay wixii bilaabeen waan ku soo biiray iyadoo ayna sahlanayn laakiin haddaan annaga u istaagi weyno dalkeena iyo dadkeena cid kale u istaagaysa ma leh oo u istaagnay waa u dhabar adeegaynaa waana mashruuc loogu adeegayo ummadda Soomaaliyeed waana mashruuc iska wax u qabsa ah oo la rabo dad Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan dadka oo ka shaqeyn doono waxay noqonaysaa marka hore si cad waa la advertise garayn doonaa markaasna dadka ayaga soo dalban doono markaasna criteria degsan qofka مثلا executive director oo kale waxa u qoran criteria then sidii shaqo kasto adduunka marka shaqo ay soo baxdo sida ma aragtay ay ku dhisan tahay transparency yaa loo xayeysiin doonaa dadkii soo dalbadana waa la fiirin doonaa waxa lagu soo xooli doonaa khibradooda iyo aqoontooda guddi baa loo saari doonaa interview marka qofkii hela nasiibkiisa laakiin wax qof in adeerkiisa uu keensan kara ama nin jeclaysi lagu keeni kara ma aha jaaliyadaha dibadda waa loo tagi doonaa waa la gaarsiin doonaa insha Allah waa la rabaa inay ka qayb qaataan waana lagu xisaabtamayaa fursad fan sida mataqaanaa ka abuuranti kulle fikradda had dhiseen waaye barnaamijka marka runtii waa barnaamij bilow ah oo wadanka horleen ku qabano barnaamijkaas may dheegi jirnay hay'adaha caalamiga ah yaa $1 iyo kaniisada ku aruuriyeen yaa ummato yani mashruuc oo iyo raalon ku ayna hataan soo bii jireen dadka Soomaaliyeed may kula taladaan marka barnaamijkan ana may hay deereeyay in oo tumi qof oo laha xuli أنا كمية حرير لها الصوبي كاسة مركان أرجع برنامج كسيدوسو فكرة حنبارسين إني الشقة أبور إني الطول اللي انقبض الله فضاو العق أودي بدكوا كويتنا يعني لينك فنكريانا أم لينك بيانا أو اسكتل الشيء قف كم يعني إني يو اسكتل ذايان لو نقول بالصومالي هو $1 ديونا
in walweyn mashaariic la qabado karo mashaariicdaas oo leen fiiri doono may taraayaan may shaqaha yani ay ku shaqeeyo karo si shaqo abuur soo biyo koraan ya mashaariicdaas la soo biyo doono tan kale Soomaalidii may yani burburkii ka bacdi wal shal roori qabaa'il la shal nagadi la warba gobol ya nagadi marka may ila taa sida shiraydo in iska kooyo koraniyada in la kamido in wal iska darsado haddii wal iska darsado dadkii kalsoonidii oo hanaqadaas is aamisho hanaqade Soomaalinimadii hanaqadaas marka barnaamijkan may aragay barnaamij liibaahay oo waqti fayrna ka toosi iyadoo dawlad iyo siyaasad iyo hay'ado caalami ku madax banaayay ummadda inay is aragdo hooyo wal suubsadaan inay wal qabsado koraan tusaalahan may la reey mudac ama cirbad aruurti masaaranagaas mar halalkaas dollar haddii oo la aruuriyo si daacadeena la maamulo iyadoo Soomaali meel walba yani mashruuci fayla dhalinyarada shaqooyinka abuuro wadankana kormare ummadana wala naqadaas kalsoonida xumada oo noo qabo Soomaaliya dawladihii wala ku sheego hayo corruption waaye masuqmaasuq ay leeyahay in la tuso in dad Soomaali ah iyo suubsado koraan howliyo qabsado koraan mustaqbalkan may dhii doonta in la kumaaramo macaawinta dibadda magacaygu waa Sahra Axmed Kushin waxaan joogaa Garowe waxaan ka shaqeeyaa macadka cilmi baarista Isidra aad baan ugu faraxsanahay in guddiga BOD-ga ay fursad fund lagu magacaabo lagu daray waxay tahay runtii fursad aad iyo aad qaali u ah waxaan u mahad celinayaa inta ay soo dooratay igu dartay waxaan sidoo kale mahad weyn u celinayaa fursad fund dadka soo alifay inta ka shaqeysa inta ka shaqeyn doonta iyo inta wax geysan doontaba waan u mahad celinayaa runtii fursad fund waxaan isleeyahay waxa weeye waxa kaliya oo Soomaalida isu keeni doona in Soomaalida isu tashato oo laga fakaro dhalinyaradeenii dhibaatada haysata oo tahriibaya oo meel kasta maanta ay dhibaatooyin ka haysta kala kulma dhibaatooyin aad u fara badan in maxaan ku dhahaa aan ka fakarno aan mustaqbalkooda ka fakarno waxay noo tahay sumcad aad iyo aad u weyn dhalinyaradeenna waxay u noqonaysaa dhiirigelin in ay arkaan in anagu aan daryeelayno dhalinyaradeenii oo aan ka fakarayno mustaqbalkooda waxaan ku idhaahdaa waxaan ballan qaadayaa maadaama lagu daray guddigii anigana aan ku jiro maaragtay fursad fund in aan ka ahay xubin yani BOD-ga waxaan ballan qaadayaa lacagta la isu qoray $360 iyo $65 waxay ma xasuustay in aan bixin doono waxaan ballan qaadayaa inaan wax alla waxa aan kari karo aan u qabto fursad fund haday noqoto wacyigelin dad loo sheegayo la sii gudbinayo fariintaasi haday noqoto wax ka soo qaad haday noqoto shaqo tala bixin kulli waan qaban doonaa insha Allah waxaana u soo jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba inay wax ka qaataan inay maxaan jeebka gacanta geliyaan oo maanta ay ka qayb qaataan barnaamijkan aad u quruxda badan mideynaya ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba laga fakarayo dhalinyaradeenii mustaqbalkoodii in shaqooyin loo sameeyo in waxbarasho la siiyo runtii waa fursad aad iyo aad qaali u ah adduun weynahan inuu arko in Soomaalidu wax qabsan karto in Soomaalida ku walaaloobi karaan in maxaan ku dhahaa ay isu yimaadaan oo hal ambition iyo hal ujeedo iyo hal goal la yeesho runtii oo wixina wax si dhab ah ay u soo baxaan oo lagu kalsoon yahay oo wax tar leh oo wax soo saar leh waxa weeye ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba waxay noqon doontaa waxaan u malaynayaa fursad aad iyo aad qaali u ah waxaan isleeyahay wax badan oo isbedel ah buu keeni doonaa fursad fund ka mid noqoshada xubinta memberka waa walaa wax oo hool Soomaaliya dhan u taalo qaasatan anigu ligu soo qasbayo waxa la dhahay waa inaan ka noqotaa shaqo badan ahay marar badan aan isku day inaan ka wacdo way suurtageli weysay barkay muhiimadda ummadda u leedahay ka badan shaqadeedo badan waxayna badan wilina waxa mas'uulina ka saaray ummadda Soomaaliyeed fursad loogu sameeyay inaan controlno controlayaashan ka mid ahay aniga lacagta meesha aadayso iyo qofka la siinaayo si loo controlo aan ula socdo waxaan isku dayaynaa inaan ka soo baxno mas'uuliyaddan nala ku qasbay inaan qaban ummaddeena Soomaaliyeed qaban dadka qandaraasyada soo dalbanaya Soomaaliya dhan u furan tahay intaan ka ahayn anaga board memberka dadka iyo qoyskooda oo u dhow maamulka controlaya anaga ma dalban karno qandaraasyada laakiin Soomaaliya dhan u furan tahay qof walba dhalinyaro oo Soomaali
inaan wax u qabano siday ugu magacaabsan tahay ururka waa fursad inaan ummadda Soomaaliyeed oo 25 sano fursad la'aad ahayn in fursad la siiyo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo si kasta jadwalkayga uu mashquul u yahay aan ku qasbanaada u ogolaado waxay tahay fursad fan inay Soomaaliya dhan gaarayso gobol walba Soomaaliya kamid ay gaarayso dhalinyaro walba Soomaali meeshuu rabo ha joogo inuu awood u leeyahay inuu soo dalbado fursadda uu u furan yahay waa mid aan weligeed wadanka ka dhicin waa mid ugu horeyso ee Soomaaliya inay ka dhacdo barnaamijyadan oo kaleeto waana mid wadankeena lagu dhisi lahaa